habeenkii xalayta ahaa ayaa hotel dalxiis ee degmada Arabsiyo waxaa lagu soo bandhigay naadiga akhriska iyo qoraalka Arabsiyo Readers Club oo ay fikirkiisa lahaayeen daayirta degmada Arabsiyo kuwaasi oo fikir oranaya in aqoonta kor loo qaado uu ku dhaliyay markii ay fiiro gaar ah siiyeen aqoonta daayirtana wax badan ka qabtay arrimaha bulshada ayaa habeenkii xalayta ahaa ay riyadoodu rumowday kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo labeenta dhalinyarada degmada Arabsiyo isla markaana lagu wajahayay sidii loo unki lahaa naadiga akhriska iyo qoraalka kor loogu qaado aqoonta daayirta iyo cid kasta oo ku duugan yahay fikir ayaa halkaasi lagu soo bandhigay waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka degmada maareeyaha wakaalada biyaha ee degmada kormeeraha aqoonta kormeeraha waxbarashada iyo sayniska degmada Arabsiyo Maymuuna Daawud oo ah murashaxad u taagan golaha deegaanka waxna ka qabatay arrimaha bulshada iyo haweenka socday ururada maxalliga ah ee degmada Arabsiyo kuwaas oo dhammaantood dhiirigeliyay in la unko ururka ama naadiga akhriska iyo qoraalka degmada Arabsiyo kuna dheeraaday ahmiyadda uu daayirta u leeyahay naadigani hadaladii halka laga jeediyay ayaa dhammaantood ku taxalluqay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta daayirta isla markaana gacmaha la iska qabsan lahaa si halkaasi iyo meel ka sarreysa ay dhalinyartu u higsan lahaayeen dhammaan hadaladii halkaasi laga jeediyay ayaa waxa kamid ahaa waxaan u geli doonaa naadiga akhriska iyo qoraalka halku ka soo bilaabay iyo si loo asaasay iyo baahiyiin oo asaasay naadiga akhriska iyo qoraalka degmadu waxay leedahay naadiga akhriska iyo qoraal ama gobolka markaan eegnay baahiyaha loo qabo hal abuur badan loo baahan yahay oo hal abuur badan degmadayda uu ka jiro abwaano badan ay ka jiraan oo cid dhiirigelisa cid maxaa dhahdaa gacan qabata cid maxaa dhahdaa ku tirtisiisa markii la waayo abwaanka halkiisii ku taagnaana magaciisa sumcad yeelanaayo ama fogaantiisa horumari mayso marka hore bariid iyo salaan iyo bilkhayr wacan bismillaahi dabiil annabiytu saaliya baanihiya qorfaytaba la bakhayli maayo maansada baalayda barta ugu habboon baan bismillaahi odhanoon baaldahab ka geliya dhulka oo barwaaqo ah dadku ay badhaadhiyo baadkaba hayaanoo maalkii badnaa iyo garaygiiyo biciidkii hadda meesha baar kale intay barqa fadhiisteen isku beegay qoraxdana oo beledku lada yahay dhirta bilicda daymada marka aad bildhaansiga laga eego baalasha nafta beerjileecdaba ubuxuna badnaantii bilicdiisii dheehneed intuu soo bannaan dhigay baalashana casaysanay oo goraygu baashi bandhigaya oo afyaha biyuhuna durdurayaan basharkuna cibaadada baxsanow ilaahay ay wada baryaayaan oo culimaduna baashood barqadii markay tahay baryadii ilaahay loo wada bannaan baxay bisinkuna halhays yahay hawlaha khariirtiyo juuraanaynu eege xaruntii dalxiiskiyo xariirsama ku noolow xili roobku nagi yahay oon lahayn xagaa iyo dabaylkii wareegta ah xaadiyo dareemada beeraha intuu xidhay xarfadiyo tigaadii gobollada ku xeernay mihigaan xalaydaay iyo may xafiifii xiimaayo weliyo oo xawli dooxii ku socda xawaaraha xaawalida dumarkiyo xaasiyo gashaantigo laga soo xarriga baxay daawashada ku taameen waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhalinyarta naadiga akhriskana waxaan leeyahay hambalyo waabaa loo baryay baan leeyahay aniga xitaa diyaar waa inaan akhriska habeen walba ku xidhnaado anigu aan ku xidhaado akhriskaasi oo inta loo jimcinayo anigaa ka mid ah waxaan leeyahay oo kale dhalinyartayda ha ku mashquulina meelaha waxbay naga soo gelin sida meheradaha maqaaxiyaha balwadaha caandayo noogu jirin waxaan leeyahay akhriskaasi qiimeeya ay dhalinyarta walaalihiina idin hureen qiimeeya ku xidhnaada annaguna waanu garab taaganahay waanu soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida balwadoo kale waqtigoo iska nuqso oo iskaga ciyaarto wax badan buu difaac u yahay akhrisku horumarna waa lagu gaadha anigu aad waxaan ugu bogay bahda suugaayahanka ah waxaan ka codsanaya
بريري بدأ وفرحان لي ما أنت ويبدأ اليركان إني خل بريري بدأ كثير كيركلين تاسنا وفرحان وقوي دريت قولية إني الرياض تاريخ دريت كل كسر شيء وحياة قبتها وإن مرة استحسسنا إنه مكتبات الدكتور كتحرية يريك إني سمين وقت بدأ بريري دريت akhrisku waa waxa aan heerka sare ku soo gaarnay waan soo dhaweynayaa naadiga wax akhriska runtii ka guddi library ahaana aad baan u soo saacidaynaa aadna waan u soo dhaweynaynaa waa camaritaan nooyin baan leenahay runtii waan idinku garabgelaynaa wax akhriska annaguna ku jirnaa kolley isku dhan baan nahay marka waa inoo wadadan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin laakiin halkaa la bilaabay waa inaanay ku joogsan ay sii socoto naadigaasi maanta waxaa timi dhallinyaradii berintooda waxaa timi odayaashii maanta idinkoo dhallinyaraha intaa ka odayaal gaadhaysaan waxaan idinku gubaabinayaa inuu naadiga akhrisku uu sii hirgalo waxaan kusoo gabagabaynaa markaasi tuucyadii hadhaawi ee uu lahaa qallinkaa wax suureeya kugu sima halkaa doonto saaxiib kal furan weeyi sunta farakuhayntiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka soo jeedinaya oo keliya anigoo ku hadlaya afka naadiga waxaan idin leenahay haddii aad maanta arkaysaan naadiga qoraalka iyo akhriska iyo weliba tanabahda suugaanta naadigu weliba waxyaabo badan oo kale oo idiin qarsoon baa jira dhalinyarta degmada arabsi waxaan leenahay inay ka faa'iidaystaan inuu qofku akhris iyo aqoon yeesho taasaa markaa muhiima dhalinyarada waxu ku dardaari lahaa isku daya inaad yani shayga akhridiina idin anfacaya aad ku dadaashaan ood akhridaan kitaabka qur-aanka ah oo ay koob ka tahay qofku luqada carabiga inuu barto waxbarashadu waxaan leeyahay hadday diini tahay iyo hadday maadi tahayba waxa weeyaan shayga keliya ee jeebkaaga ku jira een ka dhicin een qoyin een hallaabin ee waxa weeye waqtigeega markaad gaadho aad ku anfacaysa dadkaaga iyo dadkaaga markaa waxaan ardayda leeyahay waxbarashada adkeeya waan ahaa runtii macallinkaa ka dhawaajiyay markii dhaweydee marka la soo qaado akhris iyo qoraal inaynu inta ka badnaano ayaa u tahay laakiin waxaa laga yaabaa inay ama ciyaariyo waxba socdaa laga yaaba xagga dhalinyartaan u jeedaaye ama baadhiyeeye calusiyo waxbaa yar jiro warta inuu habsaankaa ka yimid malaya ardayda waayo ciddii ay xusaysay waxay dadka timahooda isku siman yihiin eena ma bidaar lahayn baa ma cero lahayn inay soo buuxiyaan hoolka waayo idinkama iibsanayno kuraasi yar marmaranayo iyadoo yar baxbaxayo in aadinta noo yar kala baxbaxdaan idinkama iibsanayno ku daafurayno ururka naadiga qoraalka iyo wax akhriska oo ah qoraalku waxa bulshadu ay ku horumarto iyo maxay ahayd marka sharafka kaleba aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan idinku salaanta islaamka inta action aid ayaa beeralayda degmada arabsiyood u qabatay aqoon kororsi ay kor ugu qaadayso aqoontooda isbeddelka cimilada loona heli lahaa dalag u adkaysan kara deegaanadeena waxaad aragteen environmentkana deegaankeena in isbeddelo weyn ay ku dhacayaan isbeddeladaasoo dhinacyo badan markaa waxooda ka imanaya bal sideebaa xal loogu heli karaa in la badbaadiyo deegaankeenii uu deegaankeenu noqdo deegaan barwaaqa oo la ilaalinayo magaranaysa maxadda barwaaqadiisa iyo qaabisiga si wax soo saarkii beeruhu noogu noqdo mid wanaagsan inaanu soo gabagabayno seminaarkaasina markaa wuxuu ku saabsanaa sida cimilada maanta ay u samaysay waxa weeyaan nabaadka iyo sidii looga hortagi lahaa seminaarku markaa wuxuu socday muddo 3 cisho ah kale culum badanna waa lagu qaatay oo kale waxay garab taagan macallinkii waxa weeyaan bixinayay markaa waxaan jecelnahay cimilada iyo sidii kor loogu heli lahaa dalagga u adkaysan kara isbeddelka cimilada dadka loo beri lahaa taasoo markaa waxaweyaan deegaanadeenu magaranaysaa maxaa inta badan ay ku dhaceen xaalo fara badan oo uu keenay isbeddelka cimilada waxyaabaha la beraya waxaa ka mid ah sidii ciidda loo ilaalin lahaa sidii magaranaysaa xasharaadada faraha badan lee kusoo dhacay beeraha looga xakameyn lahaa siduu qofku ugu heli lahaa xal magaranaysaa maxaa degdega oo magaranaysaa maxaa annagoo ah beeraleyda arabsiyo
maanta halkan isugu nimid sidaan qoriiba aw noo sheegay qolo ka socota hay'adda ActionAid oo halkaa nagu sii doonta tababar beeraha ku saabsan iyo kolba cimilada iyo beeristu kolba waqtiga ay ku habboon tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa diyaarna aan ugu nahay insha allah بالشغل كاشتين وزارة البيئة سومالان دي هيئة ActionAid سفي عم نقصو جوجوبي سيمينار كان يا سيمينار كانوا كسي ونعكسنا وموسى حسين حسن